nebi sulaymaan calayhi salaam maalin maalmaha ka mida ayaa wuxuu go'aan ku gaadhay in uu 100 haweenkiisa ka mida uu hal habeenoo qura u wada galmoon doono si uu u dhalo 100 wiil oo jihaadka gasha. isagana jihaadkuu aad u jeclaa. deedna sidii uu rabay ayuu sameeyey. waxaana u dhashay hal wiil oo keliya, kaasina uu kala dhantaalnaa oo mid dhammaystiran uunan ahayn. kiina waa la soo qaaday oo kursigiisii ama carshigiisii baa loo soo duldhigay. ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu saad waxa uu dhahay وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. kursigiisii baa loo duldhigay kadibna uu toobad keenay. sabab muxuu ka toobad keenay? sababtoo ah waxa uu ka tegey inuu yidhaahdo in shaa allah. sidaasoo kale nebi moxamed calayhi asalaatu wassalaam waxa uu dhahay, waxa uu yimaaday maalin maalmaha ka mida niman gaalo ah, waxayna ku dhaheen haddii aad nebi tahay waxaad nooga sheekaysaa asxaabulkaaf qisadoodii. kadibna nebigu sal alla alay waslam wuxuu dhahay berri ayaan idinka sheekayn doonaa. berridiina wax waxyiya uma soo degin. 15 cisho wax waxyiya uma imaan nebiga sal alla alay wasalam. deedna 15 cisho kadib ayuu waxyigii suuratulkahf soo degey. nebigana sal alla alay wasalam looga sheekeeyey qisadii asxaabulkahf. kadibna ilaahay markuu dhammeeyey qisada asxaabulkahf wuxuu raaciyey ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ha odhanin wax baan samaynayaa berritoole ilaa ilaahay inuu ka raalli noqdo mooyaane, ilaa in shaa allah aad dhahdo mooyaane. haddihin waxbaan berri samaynayaa. واذكر ربك إذا نسيت. haddaad ilowdo waxbaan berri samaynayaa intaad dhahdo insha allah, haddaad ilowdo markaa aad soo xasuusato inshaa allah dheh oo toobad keen sidii nebi sulaymaan calayhi salaam oo kale. maxay tahay faa'iidada iigu jirta inaan inshaa allah yidhaahdo? 3 faa'iidaa ku jirta. ta koowaad waxa weeyaan ilaahay baad u bandhigtay go'aankaad gaadhay inuu ku waafajiyo. insha allah hadduu rabbi oggolaado, hadduunan oggolaanna 2 gooraba maadan guuldarraysanin ee sidii kuu khayrka roonayd ayuu ilaahay ku waafajinayaa. faa'iidada labaad barakaa kuugu jirta. ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaamaad go'aankaagii u bandhigatay wuu ku barakaynayaa. faa'iidada saddexaadna waxa weeyaan dembi kuma dhacaysid. inshaa allah haddii aad dhahdo dembi kuma dhacaysid. laakiinse haddaad dhahdo waxaasiyo waxaasaan samaynayaa berritooliya saa dambe mustaqbalka kaasaan samaynayaa oo aad samayn weydo dembi bay kugu tahay ogow. laakiinse inshaa allah haddii aad dhahdo ilaahay hadduu doonana wuu ku waafajinaya, hadduu doonana ku waafajin maayo, dembina ku dhici maysid. qofka mu'minka ah go'aan kastuu gaadho kama tago inshaa allah.